السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا channelka dhaxalgal maanta waxaan ka hadlaynaa laba fikrad oo horumar weyn gaarsiin kara naftaada kusoo dhawaada haduusan qofku dhihin waad waalan tahay weli ma aadan samayn hawl adag guuleystayaashu waxa ay jecel yihiin hawl walba ayaga qabanayaan inay u qabtaan sida ugu wanaagsan ee ebid qof uu qabtay misana ay ku qabtaan waqti yar marka uu qofka hankiisu sareeyo 10 jibaar awoodiisu waxa ay dheer tahay noolaha caadiga halka 100 jibaarna uu dheer yahay dadaalkiisa marka aad u kaba xirato sida aad guulaha noloshaada aad u soo xaqiijin lahayd waxa ka hor imaanaya dhibaatooyin aad u fara badan ay ugu horeeyaan fikradaha dadka kale kugu soo dhowdhow oo durba ku dhahayaan waad waalan tahay suuragal ma ahan inaad samayso arinkan adoo jooga Soomaaliya adoo saase okay halabalabayn hor istaag kadibna indhaha u saar una sheeg waan samayn karaa ee kaalay guushayda cameraman ka noqo haday howl la'aan ku hayso wow hambalyo hadeertaan waxaad qaaday talaabo aad noloshaada horumar ku gaarsiin karto waxaad ku kalsoonaatay naftaada waxaad aamintay naftaada uma baahnid qof kale inuu ku aamino ee tusi oo kaliya miraha guushaada horumar wacan naftaada ha ku qiimeyn da haddii halbeeg ugu weyn aad wax ku qiimeynayso noloshaada uu noqdo da waxaad ogaataa inaad qasaartay waxaan arkaa dad marmarsiimo ka dhiganaya da'dooda oo dhahaya aniga weli waan yarhay qof weyn uma muuqdo xitaa saan ma noqon xitaa saan ma yeelin sideen dadka u hor istaagaa oo aan ugu dhaadhiciyaa fikirkayga uguna iibiyaa waxaa laga yaabaa in marxalad noocaas ay ku soo martay mise aad ku sugan tahay balse xaqiiqda jirta ayaa ah in qofna muuqaaga uusan wax ka galin marba haddii aad bulshada wax ku ool u tahay la imow fikrad hal abuur leh ama ganacsi waxaa hubaal ah in dad badan aad ka heebaysan jirtay ay ka mid noqon doonaan dadka ugu horeeya ee ku sacabtumaya ayagoo weliba ku haysta role model ku dayasho mudan haddii aad ka mid tahay dadka da'dooda weyn tahay misana ismooda in waqtiga ay wax ku baran lahaayeen uu dhaafay waxaa jira xikmad oranaysa do what you can while you can taasoo micnaheedu ay tahay sameey waxaad awoodo xilliga aad awoodo haddii aad tahay qof ay ku xiriiraan caruur iyo qoys waxay u badan tahay in waqtigaagu ciriiri uu yahay balse taa micnaheedu ma ahan inaadan helin 30 daqiiqo oo aad noloshaada ugu faa'iideyso 30 daqiiqo kaliya ayaa kugu filan inaad wax ku barato cilmi waliba dunida yaala waa haddii aad joogtayso kana doorato mid waqtiga ugu fiican noloshaada aad haysato waa isla hadda hadeer hawsha aad hadda gacanta kula jirto ma tahay hawl adduunkaaga iyo aakhiradaada kuu dhaweynayso da'daadu micno ma samaynayso haddii aad ka faa'iidaysanayso waqtigaaga waxaa laga yaabaa in qaarkeen waaga uu u baryo ayagoo 30 jiro ah misana wax xirfad iyo aqoon aan midna kororsan adigan idaawanaya waan ogahay inaad tahay qof raba in nolosha heer sare uu ka gaaro waalidkiisa anfaco naftiisa anfaco waxaan kugula talin lahaa inaad ka mid noqoto dadka riyooda dadaala kadibna xaqiijiya meesha ay dadka ku kala harayaan ayaa ah dadaalka haddaadan dadaalin riyadaada wax ay ku ekaan doontaa riyo oo kaliya intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago maanta aad u mahadsantiin haddaad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar si aad qayb ugu noqoto dadka ka qayb qaadanaya barnaamijyada ka baxa channelka mahadsanid